waxaa la sameeyey isku aadkii Afcom qaaradeena Afrika dalkeena Soomaaliyana qaybta ay ka tahay TV-ga Astaan ama xarunta Astaan oo runtii macalinka xulka qaranka iyo ciyaartooydiisa iyo qaar ka mid ah madaxda xiriirka Soomaalida kubadda cagta dhalinyarada Soomaaliyeed legendska macallimiinta dalka macallin Nuur Amiin uu weyn yahay macalinka under 17ka kusoo guuleystay dhammaan waxaa meeshaas runtii lagu falanqeynayay oo aad iyo aad ay kaga hadlayeen dhalinyarada Soomaaliyeed qaarkooda aragtidooda ku aadan group C oo xulka qaranka Soomaaliya iyo Ghana, Ivory Coast iyo Gambia dadka qaarkood halooda waxaa ka mid ahaa in reality laga hadlaa fiican waxaan suurtagal ahayn awal stage kan inaan soo gaarno waxay ahayd mid aan suurtagal ahayn taasna suurtagal ah hadda ka dhignay waxaan rajaynaynaa insha Allah stage ka wuxuu inaan u sii gudubno waxaan hadda suurtagal ahayn aan suurtagal ka dhignay insha Allah daaficina baan marka waxaan leeyahay Soomaaliya guul macalin calina talaabada aniga marka hore waxaan ku jiray dadka aaminsanaa in xulka qaranka Soomaaliya loo dhiibo shakhsi Soomaaliyeed oo local international ba wax ka fahamsan marka ugu dambeyn way shaqaysay aragtida aan qabay in macalinka loo dhiibo marka yoo cali waxaan leeyahay mar walba waxaan u rajaynayaa guul insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaan baaweynta isboortiga ee kasoo qayb gashay madashaan iyo dhammaan maxaa la dhahay sheekaysan iyo xulka qaranka Soomaaliyeed waxaa la isweydiiyey groupkan waa adag yahay laakiin xulka Soomaaliyeed quality iyo tayada iyo meeshu maray ma la isweydiinin taasaa su'aalka taagneed xoogoo inaad dadka ku celisidaan oo quality iyo meesha ee Soomaaliya ay joogto maanta ma joogtaa maya waay ilaahay waxaan rajaynayaa ilaahay ku mudarnaad insha Allah taala qofa meesha wuxuu ka dhahay kaalinta labaad aan ku soo bixina waxaan rajaynayaa kaalinta koowaad dhibca fiican natiijo fiican aan rajaynaynaa insha Allah taala waxaan boqolkiiba aan ku kalsoonahay anoo matalayo afka ku hadlayo xiriirka Soomaaliya kubadda cagta xulka qaranka Soomaaliyeed boqolkiiba oo ku kalsoonahay insha Allah taala ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa inaan African Cup of Nations aan ka qayb galno sanadka soo socdana aan World Cup ka qayb galno insha Allah taala hay marka koowaad marka xigana waxaan bogaadinayaa dhammaan ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya iyo macallin Wacli waxaan aaminsanahay groupkan anaga kaalinta labaad aan soo bixi karnaa waxaan aaminsanahay Ghana iyo kuwan kale Gambia in hadda dhahayaan Soomaaliya dhibceeda ku tashanayna laakiin waxaan dhibco lagu tashan karo maahan waxaan aaminsanahay inaan meel kaalinta labaad aan soo bixi karno oo aan meeshaan aan ka dhigi karno cagaro laakiin waxa loo baahan yahay in isku kalsoonaado cabsidana iska dhaafo ama